galabta waxaan sikadiisa ula kulmay Dr. Jaamac oo ah markaas doctor ku daweeya dadka dawooyinka herbalka ama dawooyinka dabiiciga oo aan ahayn dawooyinka daweysan hadda ka hor dalmar media ayaa magaalada Garowe dhaxdiisa kula kulantay isla markaas waxay ka duubtay muuqaal uu kaga hadlayo dawooyinkan iyo sida loo isticmaalo doctorka oo maanta halkan ku kulanay dowladda magaalada Garowe wuxuu sheegay in dad badan ay la soo xiriireen oo waliba dumarka ay u badan yihiin oo ay dhaheen ana qaybteeda maxaa uga hadli weeday Dr. Jaamac ayaan soo dhaweynaya Dr. Jaamac dumarka ay la soo xiriiray baa waxay ku dhaheen maxaa qaybteeda uga hadli weeday bal hay'ad soo dhawow hotel la gelin baa ka bixinaya hadalkii hore gabdhaha aan ka tagay waayo mar walba gabadha iyo wiilku way wada socdaan arintaas arrinka ka degdegay maadaama warkii hore kadis ahaa waxaan ugu bishaaraynayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaanba codsigooda inaan fuliyay horta waxa haweenka ugu dhacaa xanuunka la yiraahdo infectionka afarno mar xilliga caadada ku xanuunsataay oo nabar iyo qandho labada waa yeelataa marra waxa burbura xilligiisa oo muqaddamaad iyo mutaakhir buu keenaa marra uu soo hordhaca marra waa dib dhaca laba jeer dhacayntiisa isbedesha midabkiisa isbedela mar wuxuu sameeyaa shaah cadays oo go'ay wax weeg oo harga marna wax madow oo khad oo kala u noqda xilliga uu tagayurka iyo burburka keeno gabadha uu kunteeda waa dhimanaysa rimi mayso haday rintana way dhicinaysaa qaaliban caafimaadkana Ilaahay waa bixiyo daawadina aan wahaya waxaan kaloo ugu bishaaraynayaa in Ilaahay uu guuleeyay kiisas badan oo kamid yahay xataa kansarku maadaama hadda aan baadiye fariisanayo oo awal magaalooyinka waan ka baqi jiray inaan maartay sii daayo macluumaadkayga maadaama hadda isbitaalkan dhameystiro aan rabo bisha 8aad Ilaahay idinkiisa inaan fariisto meel baadiye waxaan xataa u hayaa kansarkii in Ilaahay uu guuleeyay gabadha hadda YouTube ku jirto gacan lugta laga goynayo waad aragteen dhakhtarkii wuxuu ku sheegay kansar inay qabto lafti madowdahay ilaana way ugu badbaadshay waayahay Dr. Jaamac waxa sheegtay in dadka adigu daawooyin herbal ku daweyso daawooyinka yaa baaray horta oo ogaaday bal inay caafimaad leeyihiin inaanay caafimaad lahayn wax kasta cilmi bay rabaan ma ogtahay in qofku wax aanu garanayn lagu daweeyo wax wanaagsan ma aha marka maadaama bulshaduna ay qaybtooda tahay intooda badan dad wax baratay oo aqoon leh dadku yiri bal horta cilmiga yaa baaray dirtaan dadku ku daweynayso maxay yihiin cid wax ku noqotay ma jirtaa ma sha Allah aad iyo aad baan ugu mahadsantahay su'aasha ay weydiisay in badan baa la weydiiyay wasaaradda caafimaad baan ugu hoostaga soo xaqiijisay shahaadaan wata YouTube-kayga ka helaysaan wax mid kale aan u dabiimahay mujarribaana waxaan ugu bishaaraynaa inaysan baqin wax sir afagtay ma leh daawadaan waa wax la soo tijaabiyay wasaaradda caafimaad baa soo jeekintay wax dhiba ma leh waxa ka marxaati furaya YouTube-ka inta qof ka hadlaysa waan Ilaahay faligiis aqoontayda ma intii aad daawadan ku dhex jirtay oo adigu dadka ku daweynaysay daawooyinkan cid ku tii dhibaatana kala kulanay ama waa dhibaato aan markaas xanuun iyo waxyaabo kale aan kala kulanay ma jirtaa waa jirtaa ninba waxaan u siiyay maanta hal xabay isticmaal baan ku yiri laba xabo isticmaalay wuu dibra irkaas la laadi lindana baan markii dambe ku damin qof soo ma taarsan lindana baa la siiyaa ama daawo khaldantay qof isticmaalay baasha lindana taliya ma qolfkeeda loo shiidaa intaana dadweynaha ka faa'iideysto ninka soo dibro irka maray rabo inuu dilaa qarxo ma la soo kulanay toddoba xabo lindana u jajabin isla markiina Ilaahay waa ka sidaay ninka labaad waxaan xasuusnay magaalada yar Bursalax baan ku siiyay nin oday waxa la soo goldago baan tagay markaa telefoonku waa iska dambasaday waan saxday duurkii waxa la soo waayay wiilal jooga goldago oo dhalinyara oo ay garanaya Dr. Jaamac ma haysan ha wani inuu saaka Bursalax daawo ku siiyay halisa ninkii baa la yiwa waa neeftuuraya war maxaa ku dhacay tii baaba sirku cabay moogta daawada midna waa la cabaa midna waa lagu isu joodaa tii baaba sirku cabay war maxaa ku qoran 29 waxa abaalay tii baaba sir tii caday oo maxaa ku qoran dhaqataan wardi isaga isdileeyay tood waxa boo lidnalaan siiya in kaale sadaasan ku ogaa Ilaahna waa badbaash marka waxaad siinayso isagu markaa ninku ku xanuunsaday oo dhibaatada u keentay muxuu ahaa daawadii baaba sirku aan ku isu joodo dabada ku dhaq buu cabay دخلت كاسة لها. سيستم كي درجة اسمع البخلطة. هذا واحد ديواتنا قاعدين. إلى هنا وابد باش لأن أنا تصير كوب بعدين. وكذا. تكنا البنت اللي أنا هذا كشقينيسا أو كشقينيسا إن دوين كانوا يدرتن هالبركة. ما أوتكتي لامه عافمات كان وسارة عافمات كدتك أي خصيصة أو موشكتي إن دوين كان هالبركة هذا دتك كود دويسو. سلامركا السنة أتوقع جناح سنة يسوع جناح سياجيين. هدي ساعدوا تكتم حبله. هاد بعض مقاصد هذا 100,000 مرة. وسير كعافمات كجامعة. شركة إيه سمينا داوينك
formality ma kala raba inaan ka dhigo mustaqbalka niman waxaan la soo heshiiyey milisiyaana hadda koor markaan la soo heshiiyey waxay yiraahdeen maadaama xuduudka Itoobiya ka dhisay iyo Soomaaliya xooggan ka dhisay isbitaalka Daarusalaam Milyan ka dhisay maadaama aad ka dhistay baa xuduudka Soomaaliya isbitaalka shahaadadaanu tahay Itoobiya waxaan u baahanahay warqadaan kale inaan siisin wasiirka caafimaadka aan keenay jaamac ninka la yaabo goro meesha jooga Puntland oo igaranaya nin buu yiri u soo qiimee warqadiisa fiiri asagoo ii diray wax quraafaad weeyo waxba kama jiraan dadka aqliga aan u sheegaya anigu marka u gudbinaya hadda marba waxay inaan qarsada rabay laakiin maadaama ay weydiisay sidaas aan jawaab uga helin waxa weeyaan 2000 iyo waxa weeyaan 18 marka hadda deegaanada Puntland ama deegaanada Soomaaliyeed marka laga yimaado wadanka Itoobiya oo shahaadada haysato deegaanada Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka leedahay wasaaradda caafimaadka deegaanada Soomaaliyeed Puntland baa kugu soo kaysay iyaduna wali wax jawaab kama haysid ma la oran karaa marka shaqadaadu wali shaqa lagu kalsoonaan karo oo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ku kalsoonaan kara maadaama shahaado caafimaad oo Soomaaliyeed aan haysan ma aad baad ugu mahadsantahay su'aashaada waxa soo wacaynayaa professor hadduu dhintay baa lagu yiri warfa ilaahay u naxariisay Mareykanku iga soo wacay YouTube-kayga fiirsaday markuu YouTube-kayga dhex galay oo nin saaxiibkay Mareykanka joogan baa numberkayga siiyay oo is wareysteen oo Cabdino la yiraahdo Ibrahim Sheekh marka uu soo wacay professorku wuxuu yiri maskaxdaada waa loo baahan yahay in uu uga faa'iideeyno wadankana waa baahanahay shahaadada documentkaagu laba nin baa ka haysatay Soomaaliya waa important in lagu siiyaa Allah yarxamu ay toddobaadkana la sheegay inuu dhintay xilliga aan iskoolay waa xilligan ku sheegay 2018 way marka wax iigu soo dhawaado ii danqaday ninkaas aan arkay waaye adigu dhirtana dadka ku daweynayso oo heerbalkaayo aan dabiiciga aan ahayn dhirta daweysan oo jaamacad soo baadhaan wadamada caalamka laga keenay aqoon miyaad u leedahay oo macnaha dadka si aad ugu daweyso mise waxa adigu cilmi ahaan kale isaga leedahay oo practical amal aad iyo aad anigu waxaan practical baan ku qaatay aniga xanuunsaday anigu dabiic ma mujarrib baan daawada iga keentay nimaan nasabkiisa aqoon inaan raag war aan dhalay baan ku soo dhirtay bar 64 geed baan ka qoray hawshan iyadaana ninka wax laga weydiiyaa garan karaa meel socota aniga ratigu iga fariista meel socota cilmigan wuxuu ku yimid ceebaalka ka dhacday daawada marka waxay ku timid yani waa energy baan ku bixiyay badan inaan bulshadana anfaco aniguna naftayda aan saf gareeyo ilaana way igu guuleeyay aad buu mahadsan yahay Dr. Jaamac oo markaas dadka ku daweeya daawooyinka heerbalka isla markaasna dhirta mar hore ayay warbaahinta dalmar media la kulantay waa markii labaad oo ay la kulanto duleedka magaalada Garowe gaar ahaan beeraha ayaan kula kulmay galabta wuxuuna iga warbixiyay waxyaabo fara badan oo markaas uu dhirtan ka yaqaano iyo waliba sidoo kale sida uu dadka ugu daweeyo sidoo kale wuxuu sheegay in markaas dad kamid ah dadka uu ku daweynayay in ay qaybtood ku xanuunsan balse isla markiiba isagu intaan meel kale la geyn uu dhir kale oo yaqaano oo lindhaantu kamid tahay uu ku daweeyo